agaasimaha guud ee cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland Axmed Abubakar Maxamed ayaa madaxweynaha qaranka Somaliland uga mahadnaqay xilka cusub ee uu dhawaan u magacaabay wariyaha Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qulle ayaa warkan haya mudane Axmed Abubakar Maxamed agaasimihii guud ee hore wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland ayaa sheegay inuu soo dhaweynayay xilkaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ku maamusay mar labaad inuu u hogaamiyo amaba uu u magacaabo inuu noqdo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland waxaanu sheegay inuu hore uga tirsanaa bahda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Somaliland imikana hawlkarnimo iyo dadaal iyo daacad ku gudan doono shaqadiisa isagoo sheegay in uu wada shaqayn ballaaran ay ka dhaxayn jirtay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Somaliland isla markaasina xilkaasi uu soo dhaweynayo runtii waa laba wasaaradood oo labadaba baaxad weyn leh waxaana runtii madaxweynaha uga mahadnaqayaa in maamuuska inta leeg uu dhalinyarada uu ku maamusay farxad gaar ah runtii anigay tahay guul weyn runtii waxaan u arkaa inay dhalinyarada u tahay madaxweynuhu waa hogaamiyaha xisbiga kulmiye xukuumadda Somaliland iyo xisbiga kulmiyana waxa marxaati madoona in dhalinyarada ay kaalin weyn ka siiyeen ka qaybgalka talada iyo hogaaminta dalka Jamhuuriyadda Somaliland aad iyo aad markaa madaxweynuhu mahadsan yahay dhalinyaraduna abaaka uu madaxweynuhu galay ay runtii u hayaan isagii xisbigiisaba waana runtii fursad ay dhalinyaradu markaa kaga qayb qaadan karaan markaa awoodda iyo aqoonta iyo kartida leeyihiin ay kaga qayb qaadan karaan markaa horumarka dalka runtii waxaan aaminsanahay khibradeyda hore ee dhinaca waxbarashada dhinaca markaa shaqada iyo tan kale dhinaca dawladnimada soo bartay inaan runtii wax badan kaga bedeli doono waxbarashada uma cusba bahda waxbarashada in badan baan soo wada shaqeynay duruufaheeda waayaheeda iyo baahiyaheeda dhan runtii aad iyo aad baan u garanayaa waxaan rajeynayaa haddii Ilaahay la qabto aniga codsanaya markaa bahda waxbarashada iyo dadka kale ka shaqeeyaba inay u garab galaan inaan runtii ka mara dhalin doono oo markaa awoodda saari doono in caruurteenu ay helaan waxbarasho tayo leh agaasimaha guud ee cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Abubakar Maxamed wuxuu madaxweynaha Somaliland iyo xukuumadda ku hambaliyeeyay dabarka siyaasadeed ka furan dhalinyarada Somaliland isla markaasina xilalka kala duwan uu madaxweynaha Somaliland u magacaabay dhalinyarada kala duwan ee xilalka ka haysa xukuumadda waxaanu soo jeediyay dhalinyarada in ay ku dadaalaan mustaqbalkooda hogaamineed Axmed Abubakar Maxamed oo arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladiisii kamid ahaa annaga mas'uuliyadda madaxweynuhu saaray waxay ka turjumaysaa kartida iyo dhalinyarada ee awoodda ay leedahay marka si daacadnimo aan ugu shaqeyn doonaa qaranka duulalaasan hore ugu soo shaqeynay dhalinyarada waxa loo baahay abaalka madaxweynaha iyo xisbiga soo galeen inay u celiyaan waxa kale oo dhalinyarada kala dardaarmaya tahriibka iyo qabyaaladda way wadankeena maanta waxa yaala khayraad fara badan waxa yaala markaa in qofka loo geliyo inuu siyaasadda ka qayb gali karayo inuu horumarka ka qayb qaadan karayo inuu ganacsi samaysan karayo intaas oo fursadood dhalinyarada in la mid ka qurbaha ama wadamadeena jaarkii jooga runtii ma haystaan inaan Ilaahay ugu mahadnaqno khayraadka ka faa'iideysano wadankeena inuu sugayaa horumarkiisa iyo markaa hogaamintiisaba waa mid markaa inaga inoo taala fursadeena maanta madaxweynuhu siiyay waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qulle iyo Cabdiraxiin Muuse Yuusuf telefishin qaranka Somaliland magaalada Hargeysa.